السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح ونكسن صاحب بيال ملو بضنقة داونيسان هبين ونكسن مالين ونكسن وقت والبيني تايب ونكسن كسو دوادا حويه قدام بيه حطو محا عصب maamulka Somaliland oo jawaab adag ka bixiyay amarkii dowladda federaalka Soomaaliya ay ku soo rogtay maraakiibta ku soo xidha dekedaha Soomaaliya iyo waliba kuwa marinbadeedyada Soomaaliya. dowladda federaalku waxay u dirtay amar culus maraakiibta badeecada kala duwan soo qaada ee markaas ku soo xidha dekedaha Soomaaliya oo ay ku jirto Somaliland. waxa ayna ugu baaqeen in inta aysan ka soo dhaqaaqin goobta laga soo rarayo ay u soo gudubiyaan Soomaaliya bacshirada ay wadaan tigidka lacagta ay ku qoran tahay markabku ku soo baxayo dekada ay ku soo xidhanayaan iyo waliba noocyada agab ee markaasi markabku uu wado marinbadeedyada ay marayaan halka ay soo marayaan si markaasi loola socdo dhaqdhaqaaqiisa iyo sidoo kale badqabkiisa in si nabadgeliya uu badeecadaasi ku geeyo halka uu wado iyo waliba in dowladda federaalku ay si fudud ku canshuurto oo dhaqaalaha canshuurta ay si fudud uga qaado. Somaliland jawaab bay ka bixiyeen arrintaasi adag ayay ka soo saareen. systemka ay dowladda federaalku soo saartay system la mid ah ayayna soo bandhigto ay sheegeen inay mari doonaan habraaciyo ama ay noqon doonto habraaciyo maraakiibtu markaasi ay si toosa ugu soo hagtaan. dhinaca kale to 24 saac ee ugu dambeeyay waxaa sare u kacday lahaanshaha ama hadallada muujinaya lahaanshaha magaalada Muqdisho oo ah caasimadda Soomaaliya. madaxweynaha maamulka Puntland ayaa jawaab ka bixiyay hadal gaf ah oo dhaxmaray laba senator oo aqalka sanadka dhexdiisa ama aqalka baarlamaanka dhexdiisa ku dhaxmaray oo waliba gacan ka hadal gaaray. madaxweynuhu wuxuu sheegay waa Saciid Cabdullaahi Daniye haddii qole ay sheegato buu yiri lahaanshaha magaalada caasimadda oo ay tiraahdo xamar magaale oo marar badan soo noqotay waxay waay doontaa buu yiri caasimadii Soomaaliya ayay waay doontaa. waxaa dhinaca kale to 12 saac ee ugu dambeeyay 24 saac ee ugu dambeeyay baraha bulshada aad loo wareejinaya Professor Yahya oo ummadda Soomaaliyeed aad u taqaano isagana leh haddii lagu weydiiyo magaalada Muqdisho oo lagu dhaho Muqdisho waa magaalo dadka dhan wada leeyihiin oo waxa weeye Soomaaliya oo dhan baa leh adiguna waxaad ugu jawaabtaa buu yiri hooyadaana Soomaaliya oo dhan baa wada leh bal sida wajigiisu u noqdo iyo wuxuu kaga jawaabo arag buu yiri waa hadal aad iyo aad waxa weeye u falxo weeye marka la qiimeeyo waa nin Professor Yahya Aamir baa la yiraahdaa. si kastaba arrintan way taagan tahay dad badan oo siyaasiyiin ayaa qaba in magaalada Muqdisho dad gaar ay leeyihiin. haddaba maadaama caasimadii Soomaaliya ay tahay maxaa ku haboon iyadana waa soo qaadan doona waa dul istaagi doona soo dhawaada idinkuna aragtidina igula wadaaga qaybta commentiga. aan ku bilaabay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shalayta soo saartay awaamiir culus oo markaasi lagu soo rogay maraakiibta ku soo xidhanaya dekedaha Soomaaliya. dowladda federaalku maalmihii dambe hawada iyo waxay u soo dhigatay badda iyo meel walba ayaa farta lagu fiiqay oo laga soo saaray amarra culus. waxaan ogsoonayn arrintii e-visa in ay ka dhalatay muran badan hadal hayn badan iyo waliba fashilo kala duwan. waxay dowladdu ay mar kale ay furtay dagaal siyaasadeed markaasi la xiriira maraakiibta Soomaaliya. sharci baa hawlaha to dowladdu iyada sharci u leh laakiin waxaa jira maamulo diidanba ka hor imaadsan in ay dhaqan geliyaan awaamirta dowladda. waxaa ka mid ah Somaliland, Puntland oo iyada naftirkeeda dhinac u taagan oo waayahan dambe xaaladeedu aad u xun yahay. dowladda federaalku marka shalay waxay soo saartay habraac maraakiibtu ay ku hiran doonaan oo magaciisa loo soo gaabiyay ECTN waa ECTN ayaa loo soo gaabiyaa oo markaasi micnihiisu uu yahay electronic cargo track note magaciisu uu yahay. marka dowladda federaalku waxay ku amartay in maraakiibtu ay raacaan habraacaas ay soo gudbiyaan macluumaadkooda inta aysan halka laga raray aysan ka soo bixin. oo maxay soo gudbinayaan tigidkay soo gudbinayaan lacagtu ay ku qoran tahay si dowladdu
ay markaasi u canshuurto waxay soo gudbinayaan badeecada ay wadiya nooca ay tahay waxay soo gudbinayaan marinbadeedada ay soo marayaan iyo halka ay kasoo dhaqaaqayaan waxay soo gudbinayaan dekada ay kusoo xidhanayaan inta uu joogayo ee badeecadaasi la dejinayo macluumaadkaasoo dhan bay dowladda federaalku la soconaysaa waana nidaam track ah oo markaasi sahlaya in maraakiibtu aysan ka dhumanin cashuurta oo waxa weeye la canshuuro arrintan somaliland baa jawaab ka soo bixisay puntland weli kamaysan jawaabin laakiin maanta waa suurtagal inay kasoo jawaabto hadda waa mina subax hore waa suurtagal inay kasoo jawaabto somaliland iyadu markiiba jawaab bay ka bixisay waxa ayna sheegtay inay soo wado nidaam cusub oo jamhuuriyadda somaliland leedahay oo ay iyagana waxa weeye ku ogaanayaan ay kula soconayaan dhaqdhaqaaqa maraakiibta iyo doomaha ee markaasi jamhuuriyadda somaliland kusoo xidhanaya waa si hadalka u dhigaane dhowaana lasoo saari doono sidaa awgeed inaan loo hogaansami karin amarka kasoo baxay dowladda xamar waa sida waxa weeye warka kasoo baxay mareeyaha dekadaha ee somaliland oo markaasi soo saaray waa khilaaf kale marka oo la xidhiidha dhinaca badda lama garan doono ama lama garanayo saameynta uu ku yeelanaya maamul goboleedyadaasi sida uu ku dhaqangelaya amarka dowladda waa cusub yahay waa tijaabo lamida midii evisa ee dowladda federaalku ay soo rogtay ee ilaa iyo haddana fadeexadiisa ay dowladda federaalku ka lug bixilaaday sharci ayay dowladdu u leedahay intaba midda evisaga maamulidda hawado dhan maamulidda badda waxaasoo dhan dowladda federaalka ayaa xaq u leh oo markii la yidhahda dastuuriyan xaq u leh laakiin tabarteedii ma haysaa ma maamuli kartaa maxaa uga imaan kara oo cilada caqabadaha ka imaan kara maxay noqon karaan waa arrimo la isweydiin karo evisa waa la ogaaday waa kii la jabsaday dowladda federaalka laga jabsaday haddana baaritaan bay wadaa dabcan nidaamka dib ayaa loo fadhiisiin doonaa tanna way cusub tahay oo shalay ayay dowladda federaalku soo saartay oo dhinaca dekadaha lama garanayo caqabadda ay kala kulmi doonto dowladda federaalka maadaama dal 40 sano burbursanaa nidaam hadda loo samaynayo waa suurtagal caqabad walba way la kulmi karaan oo lagala kulmi karaa oo caqabaduhu waa wax iska caadiyana oo markaasi ugu dambayna laga gudbo laakiin hadda saadaashiisu waa arrinta u muuqata khilaafka ee markaasi somaliland oo ka hor imaatay dowladda federaalka oo amar bixisay maraakiibta iyo go-aanada kasoo baxa ayaa la ogaan doonaa hadduu alla idmo amarkan ayaa kusoo beegmaya xilli wasiirka dekadaha iyo gaadiidka soomaaliya wasiir tiktok iyo weliba maareeyaha guud ee dekadaha muqdisho ama dekada muqdisho ay ku sugan yihiin ama ay safar ugu ambabixeen dalka UK oo si weyn loogu soo dhaweeyey safarkaasoo ku qotoma sidii dowladahaasi loogala hadli lahaa horumarinta dekadaha soomaaliya ilaalinta xeebaha soomaaliya iyo weliba dekadaha iyo sidoo kaleta sidii loogala shaqayn lahaa ilaalinta maraakiibta doonaya inay ka baxsadaan canshuuraha waynu eegi doonaa wixii kasoo kordhee dhinaca kaleeto madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayaa soo dhexgalay isagana hadal maalmihii ugu dambeeyey baraha bulshada haystay kaasoo la xidhiidhay lahaanshaha magaalada muqdisho oo ah caasimadii soomaaliya muqdisho waa caasimada soomaaliya waqti xaadirkan hadda aan joogno waxa ayna ka bixi laadahay muran iyo siyaasiyiin aan markaasi u turaynin maqaamkii caasimadu ay ku habboonayd maalmo ka hor ayay dood adag dhex martay iyo weliba khilaaf markaasi oo gacanka hadal qarkaba u fuulay 2 senatar oo kasoo kala jeeda puntland iyo gobolka banaadir senataradaas waxaa lagu kala magacaabaa senator saciid oo puntland kasoo jeeda iyo senator muuse suudi oo gobolka banaadir iyo nawaaxigiisa kasoo jeeda muuse suudi ayaa yidhi muqdisho anaa iska leh dhulka la gadanayo waxa la boobayo waxa la qanayo waxa la dhacayo waxaasoo dhan anaa iska leh in walba dhulkiisi iyo dadkiisi iyo deegaankiisi ha u tashada buu yidhi maxaa idinka galay buu yidhi dhulkan la gadanaya dowladda way gadataa leeday maxaa idinka quseeya buu yidhi intaas ayuu senator saciidna isagana ka jawaaba wuxuu yidhi magaalada muqdisho waa caasimadii soomaaliya dadkoo dhan baa wada leh haddii aad arrintaa aad waxa weeye ka dayn weydo caasimadda waa laga raray buu yidhi maamul goboleedyada loo raraya iyo caasimado kalaa jira halkaasaa loo rarayaa adigu markaa duuduubo oo waxaad rabtid caasimadda ka samayso haddii waxa weeye aysan caasimad ummadda soomaaliyeed aysan arrintanna arrin soo socota weye waxaa intaas sii dheer muuqaal baraha bulshada aad loo hadalayo oo professor yaxya caamir uu soo geliyo uu leeyahay
haddii lagu weydiiye buu lagu dhaho buu yidhi magaalada muqdisho waa la wadaleeyo soomaali baa wadale simple waxba haysdaalinibi waxaa tirahdaa waxbaba waxa wey wax kalaa waraadinin waxaa tirahdaa bi si fudud u dhahdaa hooyadaana waa la wadaleeyo soomaali oo dhan baa wadale hadalkaa eg adag maxaa hooyo iyo caasimadda isku keenay caasimaddu waa hooyadii ummadda soomaaliyeed waa caasimaddii ummadda soomaaliyeed waa caasimad la wada leeyahay hooyana adigay si gaara kuu dhashay marka hooyadaana soomaalidoo dhan baa wada leh oo wada isticmaasha bal weeg adiga hadalkaa saasuu weegyahay arrintan marka maxay ku habboonta caasimadda soomaaliya waa caasimadda soomaaliya soomaalida dal iyo dibad joogtee soomaali ku abtirsata ayaa iskale hadba meeshii loo rarana hadda wadamada africa markii la yidhahdo wadamo waxaa jira 5 sanaba la raro oo caasimadda la raro meel kale la geeyo hadda koonfur africa oo kale 5 sanaba caasimaddu meel bay joogtaa waa suurtagal soomaalidu maadaama muranкoodu iska badan yahay inayba halkaas la gaadho ayaaba suurtagal laakiin waqti xaadirkan caasimadda Soomaaliya yaan la suuro xumaynin caasimadda Soomaaliya yaan muran la gelinin caasimadda Soomaaliya yaan dadka laga irdeynin caasimadda Soomaaliya yaan laga dhigin tuulo yar oo reer leeyahay ma qaado qoys waa caasimad Soomaaliyeed